doorashada 2016 wada dheer ay soo martay meelii ugu dambeysay joogtaa aniguna muddo dheer inaan murashax ahay aan ka soo hadlay maantana waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo inaan murashax u ahay kursiga madaxweynaha jamhuuriyadda oo aan tartankaas aan ku jiro haddii alla yiraahdo waxaan rabaa laakiin maanta inaan mid ku daro oo ah inaan dadka Soomaaliyeed aan aad iyo aad ugu cadeeyo inaan murashax u ahay dadka Soomaaliyeed koox gaara murashax uma ihi beel gaarana murashax uma ihi deegaan gaara iyo dawlad goboleed gaarana murashax uma ihi waxaan murashax u ahay dhammaan Soomaalida Soomaaliya ee dalka iyo dibadiisaba ku nool ee ku abtirsata Soomaalinimada intaas ayaan mas'uuliyadda shalana u qaaday 4 sano loo soo dhaafaan u hayay maantana inta aan doonayo inaan mas'uuliyadda u qaado waa intaas dadka Soomaaliyeed daliil iyo cadeymo badan aan u haya 4 sano ee la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaan u adeegay dalka Soomaaliya u adeegay maantana waxaan doonayaa aan codsanayaa dadka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka federaalka ka codsan waxay tahay mar kale in fursad la ii siiyo inaan u adeego 4 sano soo socota ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayadoo aan ka dhabaynayo halayskii ahaa qabya ninkeeda dhameystiro wixii qabya ahayn waa dhameystirayna wax cusub oo maanta aanan iman karin laakiin qabyada marka la dhameystiro iman karane waan soo kordhinaynaa kalsoonidaas buuxda ayaan qabnaa aan ku nimaday aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh